الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المركب ugu horeysa waxaan halkaan hambaliye iyo bogaadin uga jeedinayaa dadka deegaanka jooga oo sida xushmada iyo sharafta badan leh u soo dhaweeyay wafdigii balaarnaa ee hogaaminayay gudoomiyaha degmada Tawfiiq iyo Suldaan Haydar iyo ogaasyada kale iyo nabadoonnada kale ay la socdeen iyo sida sharafta leh ugu soo dhaweeyay annaguna aan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay horta markii ugu horeysay Ismaalay waxaan leenahay hambaliyo soo dhawaada adinka iyo maamulkiina markii ugu horeysay tabacdi waxaan leenahay hadalkii waxa weeye ogaasyadii baa Cabdallo dhan baa meeshan ku kooban ayagoo hadii Ilaahay ku reen Nacdoor ha ahaado hogor ha ahaado hadii Ilaahay ku reen yahay gorod ha ahaado Salaaman Cabdallah ha ahaadeen odayaashoodii dhaqanka ee saxiixayaashahana maanta ay fadhiyaan alxamdulillah rabbil caalamiin dantooda iyo sharaftoodana ay ka tashanayaan masiirkoodana ay ka tashanayaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah inta ka bacdi waxaan laba tifiyar baan taabanayaa anigu haddaan nahay dadka degan galmudug khaasatan galguduud kursigiisuna uu deegaan doorashadiisa uu yahay galmudug oo Mahad Cabdallo uu hadda ku fadhiyo haddana loo asteeyay inuu galguduudna ka dhaco xeraale oo degmaa iyo la jiida iyo Dusmaaleyna ay saldhig u yihiin dadkii mudnaa oo arintaas inay ka tashadaan leeyahay maanta halkaan ay joogaan insha Allah taala waxaan leenahay annagu waxaan idinku matalnaa aniga iyo xildhibaanku labada gole fulinta iyo waxaan idinku leeyahay sharci dejinta insha Allah ma tihiin dad maqaar saar ah ma tihiin dad hadii Ilaahay ku reen dad kale xuquuqdiina u hoosgalaya ma tihiin siyaasadda annaga idinku matalna ku soo dhawaada deegaankiina dhulkiina dadkiina iyo meeshii aad u dhalateen ku soo dhawaada marka ugu horeysa gudoomiye idiga wafdigaaga iyo suldaanka iyo ragga kale gogashaan markii horeba waxa cilaamiyay ugaaska guud ee galguduud Salaaman Cabdalle u jooga halkaan u fadhiyay ninkan la yiraahdo waxa weeye Cabdullaahi Dhakow runtii adinkuna waad aqbasheen annaguna aad baan ugu faraxnay kuna soo dhawaad waana jiibteen marka hore mar labaad ku soo dhawaada marka ka bacdi waxaan leeyahay laba tifo yar baan taabanayaa waxaan leeyahay horta madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug waxaan ka xumahay dad aan shaqo arintan ku lahayn magacana sheeganahay inay yiraahdaan u hanjabaan ama ay warar kala gaarsiiyaan aad baan uga madaxweynaha hadalka wadaba ordaynaa wax ka raali gelinayna marka ugu horeysa annaga iyo ogaasyadeena iyo dhaqankeena iyo dadkeena deegaanka joogay waxaan leenahay la jiiday iyo Dusmaaley iyo meel walba ku nool iyo martida kale oo odayaasha dhaqanka noo yimid raali gelin ballaaran baan ka bixinaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dhammaantood madaxdooda dhan waxaan leenahay ka raali ahaada arintaas maadaama dad magaceena sheeganaya ay arintaas ka hadleen annaguna inaan ka raali gelina xaq baan u leenahay midda kale waxaan leeyahay surre meeshan wuxuu ku leeyahay matalaad badan iyo golaha fulintaba waa ku leeyahay waxna waa wada leeyahay waxna waa ku kala duwan waxna waa kala leenahay waxna waa hadii Ilaahay ku runeeyo waa kala leenahay waxna waa naga dhaxeeya waxa weeye marka waraaqaha wiiftada ah oo dad hadii Ilaahay golaha fulinta ku jira ay qorahayaan oo dhaqankii hadii Ilaahay ku runeeyo Salaaman Cabdalle iyo Cabdallaha kale oo xuquuqdii ay lahaayeen ayuu ka jawaabay taa waxaan u deynaynaa madaxda ugu sarreeyay dawlad goboleedka galmudug baan ayadan u deynaynaa arinta midda kale waxaan leenahay odayaasha kale oo dhaqanka Cabdallaha halkan jooga oo saxiixayaasha ah qadafka lagu sameeyay waxaan leenahay raali gelin baan ka bixinaynaa waxa idinka qaadaysa ma jirto waxba kala hadlimaysaan nin aan dadkiisii iyo dalkiisii iyo deegaankiisii aan waxba ka ahayn inuu maanta yiraahdo ana saxiixaha ayaan darra asaga ku soo hoyatay waxaad yeelaysaan kalsooni badan iyo wanaag badan ee dawlad goboleedka galmudug ee madaxdeeda iyo hoggaankeena iyo siyaasiyiinta ku leedihiin ayuu la idin haya ayaad taniina ka tashanaysaan adinka iyo saxiixayaashiina iyo siyaasiyiintina kale insha Allah taala bulshada kale ee deegaanada ku noolna waxaan leenahay ku soo dhawaada marka waxaan leenahay macallimiintii iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka joogana aad iyo aad baad u mahadsantihiin haya soo dhaweynta wanaagsan goboshaan qiirada leh mudnaanta leh dadkii sameeyay ee reer maartay Dusmaaley aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa haddii alla ku rooyahay
dhammaan ciidamada qalabka sida ee dawladda galmudug madaxweynaha galmudug wasiirada baarlamaanka dhammaantood aad baan ugu mahad celinayaa waxaan halkan ugu baaqayaa anigu waxaan ahay nabadoon xoosh yaasiin cali kolen baa la yiraahdaa waxaan ahay nin maxamed cabdallaah wax ku leh kursiga deegaankiisa iyo magaciisa dhalashana waa walaalaan u nahay deegaan ahaanna waan u nahay sidaasaan wax ugu leeyahay okay waxaan leeyahay walaalaha kale oo sidaas oo kale wax uga doonayana aan isku soo wax u wada doonno wabillahi tawfiiq wasalaam 14 bolka fadligooda iyo nabiga siiradiisa ayaan idinku soo dhaweynaynaa madaxda dhaqanka ee Saleebaan Cabdalle ee Soomaaliya daafaheeda iyo caasimadda iyo meel walba ka timid hebel iyo hebelna ma oran karo waqtigu ay fasaxin maayo laakiin waxa weeye maanta aqligii Saleebaan Cabdalle miskaxdii Saleebaan Cabdalle taariikhyahankii maanta waa ku dhayihiin meesha ay joogaan oo ay ku dhayihiin oo aan ku soo dhaweynaynaa waxa weeye waa beesha korudhis oo ah beel Saleebaan Cabdalle meeshaas oo aad ogtihiin taariikhdeeda maantana heerka ay maraysa aad arkaysaan tilaabada ayada Saleebaan Cabdalle meel ay joogaanba saasay tahay oo tilaabadaas waa qaadin Saleebaan Cabdalle waxaan jeclahay hadalka inaan soo gaagaabiyo sababtoo ah waqtiga ayaan igu simeyn marka u horeysa inta ka bacdi waxa weeye haddaad tihiin odayaashii dhaqanka haddaad tihiin caqligii haddaad tihiin duubabkii haddaad tihiin culimadii oo maanta aad noo timaadeen annagu waxa weeye taariikh weyn oo haddii ilaahay kuu roon yahay qadarin leh ayaa maanta aanu idinkula kulannay waxaanan iloobayno waxa weeye wejigiinna iyo imaatinkiinna iyo intaad soo marteen waana Saleebaan Cabdalle deegaamada Saleebaan Cabdallena waa meeshii dhammaan waxa weeye odayaasha iyo waa ka socdaan iyo madaxdu qof kasta oo Saleebaan Cabdallaahuna meeshuu ku nool yahay waa salaamaynaa waana soo dhaweynaynaa sidaanu idin soo dhaweynay oo aad noogu timaadeen baanu cid kasta oo Saleebaan Cabdalle u soo dhaweynaynaa annagu hadallaan meesha ka maqlaynay hadallada aan maqlaynana hadallo aanu hadda ka jawaabayno ama munaasib ah maba aha inay ka jawaabnana ma aha Saleebaan Cabdalle waxba ma Saleebaan Cabdalle waxaas ma laha waxaas ma samayn karaan sheekadaas waa sheeko riqiisa wax aanu ka hadli karnana anagu ma aha 60kii Saleebaan Cabdalle waxay lahaayeen baarlamaanka waxay ku lahaayeen laba xildhibaan Cabdullaahi Insaani iyo Maxamed Bilay ahaayeen 1921 maantana mikrafoon qof qaato meelaha ka hadlaya oo aan noocu yahay garanayn oo le Saleebaan Cabdalle waxba ma astaahilaan waxay leeyihiin ma jirto ka jawaabi mayno midaas laakiin taariikhda ka jawaabaysa war Cabdullaahi Insaani uu ahaa Maxamed Bilay uu ahaa janankii ugu horeeyay oo baylod diyaaradka ciyaayuu ahaa Saleebaan Cabdalle waa dad taariikh leh waa dad Soomaaliya qadarin weyn ku leh mucaarad iyo qurun iyo cid ay ku gabadaan ma jirto mana aqbalayno Saleebaan Cabdalle maanta waa u siman yahay masiirka iyo saamaynta siyaasadda kursi ama ha ahaato ama dhaqan ha ahaato si kasta ha ahaatee meel kasta u joogana qadarin buu leeyahay qofka Saleebaan Cabdalle qofkii maanta doonayo isu soo sharaxana waxa laga rabaa magac Saleebaan Cabdalle inuu isku soo sharaxay magac beel kale ma qaadanayo maxaa tidaahay ma qaadanayno qof beel kale dabada ka galay mudanaha doonaya doorashada halka waa inuu soo istaagaa halay doorto waa inuu yiraahdaa waa inuu dhaqanka ilaaliyaa waa inuu magaca ilaaliyaa waa inuu cod ka soo doonto Saleebaan Cabdalle
beel kale dabada ka gelhayaa halkaasana waxaa leeyahay Saleemaan Cabdallaan ahay ma hubno imow waa kan Saleemaan Cabdalla waa fadhiya waad arki doontaa waxaad ka arki doontaa meediyaha iyo meel walbaad ka arkaysaa imow oo halkaa iska soo sharax tartan baa ku furan hal cod haddaad hesho xaashaa lilla inuu yidhaahdo kii ku baasa oo codka helo tartankana inuu u hambaliyeeyo hadduusan saa ahayn anugu Saleemaan Cabdalle kuma sheegi karo nin reer kale u galay waxaa jira rag qoraal samaynaya oo dawladdii aanu dhisannay oo wax ka dhisannay oo daacadda u ahayn oo haddii ilaahay ku leeyahay galmudug oo aasaaskeedii aanu joognay oo aan cid nooga horreysay jirin oo aanu dastuurkeeda wax ka dejinnay power sharinka aanu ka qayb qaadannay heshiiskii aanu ka qayb qaadannay meelaha 11 ah intaas dad yiri ma aqoonsanin reer kale aan ku soo gabanaynaa Saleemaan Cabdalle 60kii ilaa maanta madax bay lahaayeen baarlamaan bay lahaayeen waxay lahaayeen saxiixayaal waxay lahaayeen culimo waana la yaqaanaa kuwa ku leexleexda meelaha oo mishaxaabada yaqaano dawladda dumiyo Soomaaliya dhibana uma badna ninkii Saleemaan Cabdalle waa soo dhawaynaynaa haddii uu mudane inuu noqdo rabo oo doorasho rabo ha loo yimaado halkaas yimaado ha si soo sharxo waa loo codaynayaaye ninkii codka ku helana gadigayo waa wada sacbinayna ninkii waayaana waa inuu sacabka nala tumaa midka meelaha iska laabanayo dulmiga iyo waxyaalaha ku wareegaya anagu Saleemaan Cabdalle uma aragno Soomaalina uma aragno xataa galmudugna inuu wax u tarahayo u malaynayo ragga ku jira golaha wasiirada oo beelaha kala oo surre oo warqadaha Saleemaan Cabdalle ka qoraya ma xisaabtamay horta power sharing baa wax ku kala qaadanay qubays wuxuu leeyahay waa la yaqaan Cabdalle wuxuu leeyahay waa la yaqaan Cabdalle wuxuu leeyahay waa la yaqaan Saleemaan Cabdalle wuxuu leeyahay waa la yaqaan waxa aanu leenahay power sharing ku hirnay oo aanu inta maaragtaa nin aan ka baryayna ma jiro ma aanu ihin annagu dadka labadhifka ah oo mishaxaabiya dawladda oo habsame u socodka dawladda hor istaagaya ma aanu ihin waa bareernaa qaybtaan leenahay qaadanaa waa soo saarnaa ninkaan doonayno kii aan rabin halaatidan ku reernaa nimaan asagu waa waxaysan waxaan maqlayaa mid weliga aan wax saxiixana wal markii galmudug ma aasaaskii muxuu ka ahaa xagee ka yimid laba hadal waa kala saaraynaa ninkii Saleemaan Cabdalle oo u dhashay oo doorasho raba maxaa tiraahdeen hal qof hadduu helana waa inuu sacabka nala tumaa hadduu majority helana waa u sacbinaynaa kor baan u qaadaynaa حتى هدو والوافقون حما يراهدو والله أفكرن كرا waxa weeye lixdankii anoo laba kursi ku lahaa baarlamaanka miyaa maanta lay odhan karaa kursiga galmudug yaalla Saleemaan Cabdalle ma yeelan karaan shalay ma nin baan u daba fadhiyay markii lixdankii ma nin baan daba fadhiyay waxa weeye anigu waxyaalaha inaan raacraac ma rabo balse waxa weeye Saleemaan Cabdalle horeyna looma sheegin haddana lama sheegi doono inay dadku gabadaan iyo inay mucaarad noqdaan iyo inay qarandubis noqdaan ninkii sheegi kara hanoo keeno ya laakiin kuwa ayagu qarandubiska ah oo beesha kala ah oo ku laablaabanaya Saleemaan Cabdalle war waxba kama qaadi kartid habsan u socodka dhismaha dawladda iyo masiirka iyo saamaynta siyaasadda kuma jirtid laakiin waxa weeye deegaanka haddaad ka soo baxdo timaado oo adiga mudane la qaadan karaa tahay waa ku qaadanaynaa
haddaadan ahayna kii waxaalaad shacabka nala tubaysaa intaasaan ku leeyahay